waxaan rabaa in hal laba ka iraado safarkii qarsoodiga ahaa ee maanta labada xildhibaan ee kale Cabdinaasir Xaaji Sharwac iyo Maxaa Cabdullaahi Sanbalolshe ee magaalada Beledweyne safarkaas oo ahaa mid aad iyo aad loo qariyay anku og in labada xildhibaan ay matalaan dad aad u fara badan haddii ay rabaan inay dadka soo dhax galaan loo soo dhaweey lahay si aan loo kala harin oo wala shaqada garoonka ilaa iyo magaalada la dhigi lahaa taa bedelkeeda waxa ay yiraahdeen haddii la soo dhaweeyo waxa la iska rabaa hoolka nasashada ee garoonka in shir jaraad lagu qabto dadku banaanbax iyo diidmay soo mareen muuqafka la cadeeyo oo xisaab ay timaado taa bedelkeeda cirka dhulka webiga meel soo marna idoon la aqoona magaalada doc ka soo galna 59 kuna waa sidaan meelaha qaar caawa la isku aflagaaday dadka qaar waa isku gacan qaadeen warkayaan idinku daalinina mashruuca ugu weyn ee u socdaan haddii aan idinka dhaco barnaamijka horta inaad sheer garaysaan ka horeyso si gaar ah maxaasidii reer Muqokuri aan luuqa uga gelisaan dowlatusyadii maalmahan ka socday galgaduud iyo dhankan kale galcad iyo Masagawaay iyo aadan yabaal waxa waayeen dhogortii daanyeerka dhogor daanyeer waayeen macawisleeyna wabxay ceel buur qaban waxa la yiri cid qaba karto ma jirto ciidanka Itoobiya maalmahan duulaanka si ahaata xerada maxaasidii ku jiraan daramtiina waa ka soo daba carartay حوار للآن وحلا يري حرايس مجرو كتني سجال كان قاضي بلدوين الجيا وضيعها قضا قاقلياش أنا قضا براه بلشدة سنبلو الشهاب بحو شتك بلدوين إيه حجوب إيه عبد الله الدلبي مرو إيه علي جني مرو إيه وابوين مرو إيه هالكاس محاسك قالها قاضو حدح فديستو ساس مركو قد بدو أقب صدني وهوية لوجا شاكين مع وجلي دوا صرفيون أن دجال كانوا واجلان أريانا لما كمان شاف ففضليو أو ما نقول بناف نقدر عايو ما نقول بقف نقد لما ندافينا ما يا حلبان سوينا هالمالين تندم منا أنا سكحوا رأينا مان ها حلبان وحاسو مش غيش حل مع وجلي بحامله شوس لعكت هرتوا بقول كي بس عشان تتكبر دوينوات ديدا وحالنا كو أدين حداد حلبان حلالتهين magaalada la idin ka doorto dadka idin doortay joog war hana la soo dhaweeyo waxa u dhiwaysan dadku ayaga baawrta shadaal ku shubilaayo dhagay fari waa dhicin hadwa la idin camir la maanta baraha bulshada qabsaleedana kulaha annagu caasimadii Hirshabeelle Buurburtaa waa wadnaa koow furfur waa wadnaa labo macawisley la'aantood meel la xoreeyeen inaan tashkiilano waa rabnaa saddex ilaa idin ku dhaariye maalmahan ma aragtay laba suuq aagal guduud maalinta kun laga soo qaadaa meel hebel la maray ciidanka qabal haywa ciidanka reer hebel waa ciidanka cayr waa ciidanka Xaaji Saleymaan waa ciidanka Mariixaan waa ciidanka Dudublo waa Maxamed Saleymaan waaye orodka weeye orodka madarkicis weeye hey ciidanka Mursada waa ciidanka Abgaal waa Danam waa ciidanka waxa waa Khalid bin Waliid waa ciidanka Abu Ubayda waa waxaas wax ka jira wallahi idin jira runtii diidayn iyo inaan la yiraahdo war heede laantii waa abaar waa idinku daba gamba jirna waligiina meesha qabataan bil laqaysan jirnay oo kor loo sheego wallahi qod bisra inaan noqonin 2023 waa inta generaalku joogo macawisley waa jire waraa wiilka dhaawacmi doono maadinka ilmaha u biila xoolaha u shaba nin macawisley oo xaduudka xawaadla ka bixi kara oo ma jiro xildhibaan ciid aan la wada qabnaa haddaan guud ahaan dadka xawaadlo ku abtirsada aana annaga xildhibaanada inuu qod bisro waa aragtiin macawisley nin qod bisra oo caasimadii Hiiraan State in la soo dhaweeyo ka xishooday oo indha shareer ku yimid oo oday gadaayo ma intuu idin qaada dabka leedin ku shuba dadkan bootadoodu ay tahay daanyeerka dhogorta ku taalo kala maalin walba bandhiga hubka sameeyo hooyadooda ka tahay Xasan Tuur bartuu ku shahiiday hal geed kuma dirino wallahi mana tii karaan bentood waxaan anoo qaban waligeed koonfurta Soomaaliya deegaanada wiil laga ma qaban laakiin dadku run isku sheegaan ma rabaan Sanbalolshe hadduu run sheega horta intuu xamar ku laabto oo beledweyne soo waco oo magaalada laga kaco la soo dhaweeyo midda kale waxaanan dhaqan u lahayn sameeyeen waligaayno xawaala dhaqan uma leh diriskiisa og xawaala og Soomaalida og qof xawaala markuu garoonka ka soo dago ama Soomaaliya Cabdisalaan Hariiri nin gobolada waqooyi ka soo jeeda wariyaha ugaas xasan Allah naxariista toos ugu taga dhaqanka beledweyne yaal wax waa garoonka marka ka soo dagto ugaaska gurigiisa in qofka la geeyo kadib qofka danihiisa qabsado dhaqan fool xun oo xawaadlo ku cusub oo Soomaalida ku cusub oo annaga nagu cusub ay sameeyeen labada xildhibaan maanta haddii ugaaska ignore gareen ka warayna u tigi ama aragteen ninka ugaas u tigi waa
oo indha shareer ku yimid oo dhuumasho magaaladiisii ku joogo ma aryaad inta baawur idin ku raro wabxii ceelbuur meydkiina looga soo carara qaraxa weliba leedin ballamina waxaan hub la soo bandhigo annaga reedahana laga mariyay oo cidda halganka ku suntan annagoo oo cidda geesinimada ku suntan oo shabaabo meel kasta u furan tahay oo jidka xirnayn oo dawladu ciidan u keenin qabiilka ku dhiirado isku xurey taas in la qiraa la diiday dadka in hurmudka in xilka laga qaaday ilaahay kuuma diiday macawisleyda in la soo laayaa la rabaa waxaan arkay macawisley haayaan ama ay ciidan haayaan dadkan ma ceelbuur qabo waan aryaada sababtan loo qabanayn in adinka dad leedin ka dilaa la rabaa magaca shabaab oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi in cid wax laga qarinay wiilashaas xawaadlo la kala yaray ceelbuur in la xuraayo lama rabo ninkii marka istubida oo xildhibaan in shareer ku socda oo wadanayo haddaba tag ogow laakiin xoolahaadana wax shubaa male naagtaadana wax ilma ka dhalaa male ilmahaadana wax kurinaa male haddaad ku dhimato meel maalin walba kun suug la soo bandhigo laakiin in shabaab bida la rabay oo kaliya la rabay adiga inta sanbaloosho lagu soo diro oo ku qaada lagu dilay kadib shabaabka la iska xoreeyo shabaabkii adiga adaa lagu necab yaa saax marka adiga la iska ka dhameeyo kadib shabaab la iska xoreey rabaa oo shaatiga shabaab dilo qarax oo kula soo dhax galo meel oo kugu soo weeraro dhagaha furo kotakii 9 kun waa shaqay ways malaayiin dagaalku lagu bixinayaa 59 kun maxay tahay waay annaga aan 60 milyan konton kun uga qaadanayno oo waliba oday dhaqameed iyo qaaqlayaasha baraha bulshada la siinayo istubidin warnimada waa markii ugu dambeysay ma dhihi kara inta dadkan arkay siyaasadda noogu jiraan bal cawada maxaasi ma ku fiidiyowga iga gaarsiiya ee wiilashaas maalin walba dadka caad qaatayaasha oo nacfiga lahayn oo waxaana dadka ka maqan dhihi karin oo dadkooda u hadli karin oo dadka kale u hadla loo soo adeegsanayo nin bixi kara ma jiro safarka nimankaas qodbasirada oo indha shareerka ku yimid ee ugaaska ka dhuuntay ee qolka isku soo xiray maxaasi u soo socdaan ilaa idinku dhaariyo maalin kasta uu samreeb fiidaba laga soo dolaa ciidankii waxa qabalahay waa ciidankii reebel waa tuulo la qabtay ma maqasheen waryaa maqlay tuulo la qabtay ma maqasheen shabaab la dilay ma maqasheen waa been waa mashruuc warana gurigayna ku dhimanayna shabaab intuu nuugi maad han dilo waa ku qanacsanaa gurigayna ku dhiman cid dacwo ma qabno ilmaad reer laakiin ninkan sanbaloolsho la leeyahay iyo qodbasiradan iyo munaafiqnimada xasan sheekh iyo daalonimada laga dhaaf xasan sheekh waa ninkaan qirin inaan nahay bilada geesinimada dadka ku suntan waryaa aadan yabaalo oo dhaawacay midka lagu daaweyno biyaha looga qasaa shabaab la dirinayn oo jidka xirnay shabaab hadda oo ku jira shabaabta looga cabsana maxay too xawaalle maalin walba telefoon looga soo duuba xasan sheekh midaan leh waryaa waqtiga iska dhumin xawaalle wuxuu qaban weligeed hawiye ma qaban waa la is ogaa taariikhda ayada qoran waxa aniga dhaha ma dhax imaaw saar rabnaan kuula xisaabtamaynaa waxaan rabnaan qoranaynaa markii la fuliyo kadib aan baxaynaa ballan iyo ku soo xire gali iyo naga yaray waa badan yihiin iyo waraxaas anoo ka horeeyna 2023 waa wariya daalunkiisa kala jirno jireertu hurdaysa weerarayo oo diyuska wariya shabaab markaan dhulkayna ku xureynayna qabiil kasto ka mid aha jid kasta u furna ciidan dawlad oo dhan xamar ku xareysnaan hal askari xamar ka soo kama joogin tabartan too shabaab ka keena wariya maalin kasta waa tudhuuso mareebiyo meel kasta iyo ciidan reebel iyo jifeebel iyo suug hebel iyo laleeyahay may galaan galcadi masagwaay 22 kun ciidana joogta may galaan barti xasan ku shiidi maano galcad tuulo ka xageyso la jooga ma jirto hal sano ka hor ma hayno waxaana anoo qaban ma qaban kartiin waqtiga iska dhumina shabaab haduuna reeriin ahayn oo waxa dadka u samaysataan ahayn oo waxa dadka ku mishintaan ahayn oo run sheegaysiin dagaalka gala annaguna waxaan ku galaynaa qorshe midaysan ugaaska xawaadlo og yahay odayaashu og tahay aqoonyahanku og yahay raggu og yahay gabdhaha xawaadlo talada laga qayb geliyo oo mar walba qaaraanka dhiibo oo geela qalo oo heeliyahooda macawisleyda la garab taagna qof qodbasiraha baxa ma jiro dhamaantaayno macna gabdhaha xawaadlo markii talada wax laga siiyo oo tala midaysan ku baxno oo xasan garguurte waxa aan kulaynoona baryada ahayn aan ka qaadano oo waliba kuwa dhimo dooni kuwa dhaawacmi doona wuxooda meel ka dhigano oo baawrta dagaalka noogu guba doonto ama la qabsan doono aan meel ka dhigano aayado la isku wada ogyahay la faataxeesto la quraan akhristaan galayna wariya rekoorka waxa noogu jirto oo aan ku faanaynin dhulkaayna idinka weyn markaan xureynayna hal qori waa ama hal baabuur oo xawaalo shabaab ka furtay oo ama ciidan dawladeed xawaalo looga dhax furtay ama xawaalo laga furtay oo shabaab rekoorka u yaalo oo la soo bandhigi doona ma jiro shabaab marka anagu isdhaafinayna maalin kasta sidii carwooyinka hubka kale inta hubka dawladda iyo hubka qabiilada iyo beebayaashii abgaal iyo suugigii abgaal iyo beebihii Muuse Suudi iyo suugii Sani Cabdullaahi